dhowaan waxaa cod maqala soo dhigay baraha bulshada Zubayr al-Muhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada al-Shabaab kaasi oo dhaleeceeyay hoggaanka iyo xarakadaba. Zubayr al-Muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika. Waxa uu Soomaaliya yimid xilligii magaalada Muqdisho iyo inta badan Soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii Islaamiga ahaa sanadkii 2006 waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka Britain oo uu ku noolaa. haddaba galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka al-Shabaab kuwaas oo u xaqiijiyay in Zubayr al-Muhaajir uu ka soo baxay xarakada al-Shabaab isla markaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. galka baarista waxa uu suura gashay inuu khadka telefoonka ku wareysto Zubayr al-Muhaajir waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada al-Shabaab. ugu horeyntii waxaa uga mahadcelinayaa idaacada VOA fursada ay ii siisay inaan cadeeyo mowqifkeyga. waxaan ka baxay xarakada 2013 laakiin meelaha ay macmuulaan waxaan ka soo tagay bisha October sanadka la soo dhaafay. sababtaad uga soo tagtay waa maxay? sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalaysiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogaankooda isku dhaqaynin shariicada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaqa. su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay goormaad adi ogaatay inay al-Shabaab qaldan yihiin? sideed ku ogaatay inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 yani qaraxa oo hotel Shamo kadib. waa gartay. maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda qaraxa Shamow? maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen? waan weydiiyey Abu Zubayr, waan weydiiyey laftirkeedii arrin aan u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda albere uu sheegay taas uu igu jawaabay. ma fahamtay? anigana waxaan ogaaday inuu khaldan yahay. waa gartay. waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd al-Shabaab oo aysan ka ogeyn ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan al-Shabaab? dadka waxa uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shariicada iyo inay dadka marin hadaadinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shariicada ahayn. waaye sidee al-Shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa? maadaama al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culamo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda oo khaldan ay ka duulayaan. waa gartay. adi hadda qorshahaagu muxuu yahay? aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin, maslaxada dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug. waxaan rajaynayaa inaan nashriyo goordhow insha Allah. ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee Ivory Coast mise waxaad sii joogaysaa Soomaaliya? kaas ileeda odisana waa arkayna insha Allah. waayahay. hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga al-Shabaab haddii aad toos ula hadasho? horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay sabab u yihiin oo dhibka jiro, laakiin xaqiiqadaas ma aha. muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka al-Shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen. shakhsiyan waxaan maqlay Zubayr al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi al-Shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada al-Shabaab Axmed Cabdi Godane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac, Ibraahim al-Afqaan, Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fu'aad Maxamed Khalaf Fu'aad Shongole. kadib markii la dilay Ibraahim al-Afqaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013 waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubayr al-Muhaajir.
kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. xubnahaasi hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubayr al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka al-shabaab. ugu dambaynna dabayaaqadii sanadkii hore u suura gashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu al-shabaab ka baxay sanadkii 2013. waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. waxa uu shakhsiyan aqoon u leeyahay Zubayr al-Muhaajir. Zubayr al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006 wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Etoobiyaanka ay ku soo duuleysay. wuxuu ahaa nin caalim ah, sheekh ah, diinta yaqaan, luqado badan yaqaan. laakiin waxaa ogahay in Zubayr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubayr iyo isku dhaceen 2010. 2010 isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013 uu ka mid noqday raggii xarakada xirxirtay markii Ibrahim Afqaan iyo Macali Burhaan iyo raggaas markay dilaysay. ninka koowaad ay xirtay ayuu ka mid ahaa Zubayr Muhaajir. markaasoo xabsi ku jira ay ugu dambeysay. waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Godane iyo Robow iyo groupkii kooxdii isku dhinaca ahayd. Zubayr Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay, maxkamadii ku xukumaysay oo kala saaraysay Axmed Godane iyo garabkiisii iyo Ibrahim Afqaan iyo garabkiisii. halkaasoo isku qabseen masalooyin badan oo diin ah. markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeeday ina Godane. wuxuuna xukumay ina Godane Axmed Godane ama Abu Zubayr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego. kadacdina meeshaas ay colaadda ka timid Axmed Godane iyo Zubayr uu qaado. Zubayr al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan waqtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka al-shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan. waa dhibka jiro, laakiin xaqiiqadaas ma aha. muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka al-shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen. shakhsiyan waxaan maqlay Zubayr al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi al-shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada al-shabaab Axmed Cabdi Godane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac, Ibraahim al-Afqaan, Mukhtaar Robow Abu Mansuur iyo Fu'aad Maxamed Khalaf Fu'aad Shongole. kadib markii la dilay Ibraahim al-Afqaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013 waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubayr al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. xubnahaasi hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubayr al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka al-shabaab. ugu dambaynna dabayaaqadii sanadkii hore u suura gashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu al-shabaab ka baxay sanadkii 2013. waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. waxa uu shakhsiyan aqoon u leeyahay Zubayr al-Muhaajir. Zubayr al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006. wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Etoobiyaanka ay ku soo duuleysay. wuxuu ahaa nin caalim ah, sheekh ah, diinta yaqaan, luqado badan yaqaan. laakiin waxaa ogahay in Zubayr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubayr iyo isku dhaceen 2010. 2010 isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013 uu ka mid noqday raggii xarakada xirxirtay markii Ibrahim Afqaan iyo Macali Burhaan iyo raggaas markay dilaysay. ninka koowaad ay xirtay ayuu ka mid ahaa Zubayr Muhaajir. markaasoo xabsi ku jira ay ugu dambeysay. waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Godane iyo Robow iyo groupkii kooxdii isku dhinaca ahayd. Zubayr Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay, maxkamadii ku xukumaysay oo kala saaraysay Axmed Godane iyo garabkiisii iyo Ibrahim Afqaan
iyo garabkiisii halkaasoo isku qabseen masalooyin badan oo diin ah. markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeetay ina godane, wuxuuna xukumay ina godane axmed godane ama abu zubayr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jegada uu ka dego, kabacdina meeshaas ayay colaada ka timid axmed godane iyo zubayr uu qaado. zubayr almuhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan wakhtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka al-shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojinno, ayuu u sheegay galka baarista.